waxaan maanta wax yar ka taaban doonaa amaba aan falaqayn doonaa dhacdooyinka siyaasadaysan ee caalamka. Buug ciwaankiisu uu yahay An Economic Hitman. waxaana qoray buugga John Perkins. run ahaantii qoraaga buuggani waxa uu ku bilaabay sidatan: ragga ku dhuftay dhaqaalaha EHMS waa xirfadlayaal mushaar sare leh, kuwaas oo dowladaha adduunka ka qiyaameeya trillion of dollars. waxay lacag ka soo geliyaan bangiyada adduunka, hay-adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee loo yaqaano USAID, iyo hay-ado kale gargaarka ee ajnabiga ah. waxay ku shubaan qasnado shirkado waaweyn iyo jeeb qoysas yar oo hodan ah oo maamulo kheyraadka dabiiciga ah ee meeraha. aaladaha ay adeegsadaan waxaa ka mid ah warbixinada maaliyadeed ee been abuurka, doorashooyinka la musuqmaasuqo, lacag bixino, baadiyo jinsi iyo dil. waxay ciyaaraan ciyaaraha sidii hore u ahayd boqortooyadii, laakiin mid cusub oo qaadatay iyo waxaan ogaaday cabiro cabsi leh inta lagu jiray waqtiga caalamiyiinta. anigoo ka mid ah EHMS 1982 ayaa waxa aan qoray bilowga buugga ciwaankiisu yahay Concept of Economic Hitman. qaybihii ugu horeeyay ee qoraalka buugga waxaan u hibeeyey niman macaamilii ahaa oo aan aad u ixtiraami jiray, oo aan u malaynayo inay ahaayeen qaraabo. waxayna ahaayeen laba madaxweyne oo kala ahaa Jimmy Rawls, madaxweynaha Ecuador, iyo Omar Torrijos, madaxweynaha Panama. labaduna waxay ku dhinteen shil dab ah, balse xaqiiqada dhimashadooda ma ay ahayn shil ee waa la dilay. sababtoo ah waxay ka soo horjeesteen walaalnimada shirkadaha, dowladda iyo madaxda bangiyada ee hadafkoodu yahay boqortooyada caalamiga ah. annagoo EHMS ah ayaa ku guuldaraystay Rawls iyo Torrijos inaan ku soo darno kooxda. qaybaha kale ee qoraalka, nimankii dabacooyinka ahaa ee CIA-da had iyo jeer ina daba taagnaa ayaa isoo raadgalay, waxayna af macaani dadban la igu qanciyey inaan joojiyo qorista buugga. waxaan bilaabay inaan 4 jeer oo kale xoogag 20 sane ee soo socda dhacdo kasta oo ku saabsan ayaan go'aansaday inaan qoro. waxaan bilaabay mar kale qoraal. waxaan saameyn ku yeeshay dhacdooyinka adduunka sida duulaankii Mareykanka ee Panama, wuxuuna ahaa 1989 dagaalkii ugu horeeyay ee Khaliijka, sidoo kale soo kicinta Osama bin Laden iyo burburinta dalka Soomaaliya. la soco qaybaha xigta ee barnaamijka.